رحمة الله عليهم ويدنتين أباهي بابا ما يعني سي كويس عشان كي هالكن وكل الله يرحمه لكن هو أنا ير الميرة وسدحي تضباطنك الميرة أي دمتي لكن إن بدن وحن إسلها وحن هذا إسلها مو يهدسان نقول الله وحن إسلها هديه هو يدي ما أنت أي جوج العيد صبح كاستئنان حاجة كردون كذا أيان جعلان الله ساسا إسلاه هذا ساسا يلي لابان هذا إسلاه لكن مو قصي نقول له حالك هذا أنا كما شاكين كرو والعلم عند الله مركا كي أبيه هو يهجتو وحوين بعد هيستا وحوين بعد هيستا أباه هو يذا هذه كل جوجاتنا سدا يال أو بارني ماذو هكذا قالوا هير يعني وحال يابله وحال قصة ملك القرآن أنك غري متباوي حويري حول أباهي هو يدي أيام حقيق عدك يكور وقاد أرنبان نحمرت مركزان وحقيق هذا كوير إلى بوير سجاس كشاكينه مركزان وحويري وهم بحي جامعة ماشي أرضي بوها وأنتجي مركي أن ماشي قاربان أرنتي وحماضي مركزان هو يدي وراق أصو قريب ويري تلفونك أصو قريب وحنكو إلبير هوي وحان مقلي المها يرير على عشو ذا حق سو على ما هي تي لغة لنا هوسه دول كمرت سو على ما هي مش واحد قال لي على عشو هوسه أيام وحان مقلي المها يرير أما بني آدم المها يرير ما دهن حول بني آدم جيركي سميشه وجل عسن وعلى عشا حق عكتا أويه ما إيسا ما حيسا ما يقولان إيسا هو إن آن بل أرنتاس علميا بانو مغليه عمليا أنو أركو آن بل بشي ما هي كبارو وبمعنى أن ماشا أنت كاردون كذا أن فيريو إن هيلب كاسي جل عسن يهي إن كلي رسالة دا سوء سوقري هو يدي أرن عجائب لو سوقرته وحيث هو بارك الله فيك مركو هوري marka labaadna arinta lagu sheegay waa sax weeye umana baahnid in aad adigu aad sameeysid ana in badan ogaaday markii aad yarayd maan in badan ka dhunkan jiray aan dhabta kugu hayay ma fahanteen in badan markii aan dhabta kugu hayay ayaan anigu ka dhunkan jiro marka ana arintaas cilmigeeda ku haya oo hore u arkay markaasuu ishayn kari waayay lintii iyo hintiinta ka badatay buu hooyadii isku tuuray dhabteeda oo cagahii sidaa uga dhunkaday waxa weeye bir الوالدين خصلة من أعظم الخصال oo ilaahay ummadda muslimiinta uu siiyay weeye haddaad ogtihiin dadkaan hadda faanfaanaya iyo meelaha aad u sii wada jeedaanad leediin gaalaanu tagaynaa waxbaan tagaynaa anigu Yurub iyo Maraykan iyo Canada iyo maxay ahayd meeshii news meelo badan aan tagay waxaan isweydiiyay dadkana weydiiyay waxaan anigu ma arkin nin daa oo nin dhalinyaro ah oo gacanta wado ama gabadh dhalinyaro ay wado yani ma arkin nin daa ama islaan daa oo gabowday oo ilmo yar oo nin dhalinyaro ah oo gacanta hayo ma arag maxaa jira war ma haysin miya maalay ma dadkan ma bay shaqaanaanba دا مركو النقضه والدكو مال بالغو حريا مال dadka lagu xareeyaa jira wiilkiisa ama gabadhiisa ama ilmaha uu dhalay hadii waqtiga Christmas ko sanadkii ay hal mar arkaan oo ayaaba dad fiican yihiinba di kale ma shaqaba kuma leba waxa la igu yiri marka hadaad aragtana marmar meelaha baarkinada oo lagu lugeeyo hadaad aragto nin duqa oo nin dhalinyaro oo gacanta hayana ha u maleeynin wiilkiisa وأنا ماشي دتك دأ وين كشقية شقوي شقو سمينايا ما هنا ما وصل لين لكن ما يابا بيدهن ما بدعي كرتو أبجبوبي وويل كيسي وقعنت هايو أما هو يجبودي أو قبل ده ما ويل كده وقعنت هايو لكن ما يابا ينقلنا اللوار ما نقول بيكونوا لين نقولكم ما نقول ما هتاس نقول وحاءة إلهي نسيي كفائدة يست الكلمة طيبة بر الوالدين ما هذا بحش كجعلين هو يا أبي هذا يقول واحد سميان بلو دعي أكو دعي ما دعاء ما هو حفكها
ducadu waa ficilka aad la timaado ducadu waa nadarka aabaha iyo hooyada ay ku arkayaan weeye ficilka ay ka arkayaan weeye hadalka wanaagsaneed kula hadlayso weeye aabiyo hooyo hadday hadlayaan xataa oy kula hadlayaan inaad hoos fiiriso mooye inaad indhaha aad ka buuxsato xataa maaha min aladab waalixtiraam waaltaqdiir inaad hoos fiiriso weeye lianna waa wasiyat ullah waa dardaarankii ilaahay baa noo dardaarmay qur-aanka in badan buu ilahay ku soo celceliyey wawasayna alinsaana biwaalidayhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi midna waa wada ogaateenba ducadu waa laba nooc midna waa duco khayr ah midna waa habaar soomaalida habaar bay dhahaan lakiin af carabiga labada duca baa la yidhaha calayhi iyo lahu baa yaa lagu kala dacaa lahu wa dacaa calayhi baa la kala yidhaha carabiga labadaba ducaa la yidhaha ducada degdegta ee soo hormarta ee adduunyada lagu arko waa tan waalidaynta labada waalid waxa ay kugu duceeyaan ama ay ku habaaraan si degdega ayaa loo arkaa marka tawfiiqda allahna waafajiyo biri lwaalidiinkana ku dadaala waa wasiyat ullaahi waaye hebel iyo cabdirashiidaad ma aha dardaarankayga aniga ilaahay baa noo dardaarmay walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin taas maba ku jirtiin in sha allah walaa taqrabu alfawaaxisha fawaaxishna ha u dhowaanina walaa taqtuluu الnafsa alatii xarama allah dalikum wasaakum bihi lacalakum tacqiluun walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan wakhtigaa hadda soo gaabtay laakiin wuxuu ilaahay ku soo ururiyey markuu wasaayaadkii iyo dardaarankii soo dhammeeyey wa ana hada siraaطii mustaqiima waddadaydu waa taa toosan faاtabicuuhu raaca walaa tattabicu subula waddooyinka kalea aad u fara badan ee ilaahay kaa leexinaya ee meelo kale kugu duwaya kuwa ha raacin waddadeedaa raaca dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun waxaan isu dardaarmaynaa xub ullaahi awala xubu rasuulihi sala allahu calayhi wasalam haaniya xubu daar alaakhira aakhira inaan jeclaanno intaa waa intaa naftaadii iyo ilaahay kaa dhexaysa inta khalqiga kaa dhexaysa iyo akhlaaqda wanaagsanna kow ka bilow biri alwaalidayn ku xiji xusna alakhlaaq xusnu alakhlaaqna saddex baan ku soo koobaya waa saddex darajo darajada koobaad waa darajada diintaada la'aanteeda ayna diintaadu kuu badbaadaynin waa in sharkaaga muslimku uu ka badbaadaa waa darajada ugu horraysa min xusni alakhlaaq an takufa sharak can الnaas qofna inaadan wax u dhimin adinkaaga ku dhimin afkaaga ku dhimin dhagahaaga mar baad ku dhibtaa oo waa maxay waa markaad xantiisa dhegaysato iyo waxa laga sheegayo heble saasay ahayd haddaad dhagaha ku dhegaysatay faqad aadaytahu waad dhibtay waad ka qayb gashay ka fogow waa darajada ugu sokaysa waay diintaadana la'aanteeda ma kuu badbaadayso camal kastoo saalixood samaysana dad kalaa qaadanaya taa waa fahnay darajada labaad waa in walaalkaa ama walaashaa waxa khayr ahee adigoo naftaada aad jeceshay aad la jeclaatid taasna afka waa sahal laakiin camaliyan in loo sameeyo allahna waafajiyo arrinta saddexaadna iihaar baa la yidhaha iihaarku waa darajada aad u sarraysa waaye macnaha waa waxaad adiga u baahan tahay baahidaada ah inaad walaalkaa siiso ama walaasha aad u doorbido walaasha iyo walaalkaa markaan leeyahayna kan islaamkan ka wadaa kan aabbihi hooyo ku dhaleen keliya kama wado kan yani walaa aabbahay hooyada hadday ku dhaleen oo muslimiin yihiin dayib marka in aad u doorbido ood isaga ka hormariso macnaa adoo gaajaysan inaad isaga dharjiso waynay sameeyeen saxaabada waa maqasheen qisadii ninkii gaajaysnaayee nebiga u yimid ee calayhi salaatu wasalaam ee yidhi waxaan u baahnahay waxa in la siiyo markii gurigiisa wax ka soo waayey war ninkan yaa qaadaya abu dalxiya aan ka sheekaynaynaa kaxeeyey gurigiisuu geeyey qofkii wanaagsanayd ee barakaysnayd buu guriga ugu geeyey cunto ma taallaa tii carruurta un baan hayaa haye isaga ha la siiyo anigii iyo carruurta kulliga aan wada qadno haddee marka waxoogaygii marka la soo dhigay hadduu faynuusku shidan yahay wuxuu arkayaa inuu keliga cunayo uu cuntadii markaa kama gudanaye faynuuskana demi sidii bay yeeleen faynuuskii bay demiyeen isagiina waa dhargey arrintaa ilaahay baa ogaaday jala jalaaluhu allahu rabb alcaalamiin wuxuu u waxyooday nebigiisa calayhi salaatu wassalaam
دواكي النبي يقول لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة أخلاقنا أساسا يقول علينا قرآن كان يندر دار ميا قرآن هو نعمة الله واي العظمى ويند إن القرآن كما ركتي أنو برنو وأنو دتك سيبرنو ولوجه الله تعالى أنو برنو قرآن كقفك إلهي سيي وأنا وذسين دوناي كل جينه إنه أقوم وإلهي وكوافجيو وعرب كاga hadii goor aad ku hayso oo isaga aad shaqal ka dhigato dad waxa ugu khayr badan uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam kan quraanka barta dadkana sii bara tawfiiqna Allah na waafajiyo dambigana Allah dhaafiki waalidiinteena sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina ajma'in نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين عاف المبتلين اكشف الضر عن المكروبين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين دعاء الله نقبل والدينتنا الله دم العفو والدينتنا الله دم العفو والدينتيني وحيد انت إلهي نحريستي شاقيو إلهي جنة هقيو إلهي قبورتوده واسعيو إلهي روضة من رياض الجنة الله ودقو إلهي وحيد دنبيه قالين الله كرف إلهي وحي حسنات الله أضاعف وأوروري وأبضي إلهي جنة النبي يقب جنة الله نقول كل ميو والدينتين انت النولا إلهي هبركيو إلهي حفظيو انت بكت الله عافيو انت بكت الله عافيو انت بكت الله عافيو انت لقبكنا الله نو عافيو أولادنا الله نو هجاجي قبل يويل الله نو هجاجي الله نو هجاجي الله نو إصلاحي إلهي وحن كبرنا مستقبل ونحسن إلهي مد والبوسي أنت أنا ما شفر لي أنت كلام مسلمين تي ولا عليه الملك استون جوجنا إلهي مرادك إنه رالك يا الله نجارسي الله نجارسي الله نجارسي إلهي خاتم ونحسن كل جن الله نسي عمري ونحسن يا عمل عمر ديره ونحسن يا عمل صالح الله نوذ الشيء الله نوذ الشيء عافماتك الله نسي الله نوكر لي إله ومن نسي الله نوكر لي صلاة يا عبادة يا طاعة الله نو معاني إلهي نو معاني قرآن كاغ يذكر كاغ إله نو معاني عرب كان من ذكر كاغ كوقيا هدي قرآن إله نقدك إله نوفض إله نوفض إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا له سيدا خاص كدعاء أسوة جديستي إله وحان كبرينا سيدا قفك ولا شيء نه سو شيكتي المحرن إلهي إنه كسيد دايو ذاتك حدا إلهي قعنتو ذا كسيد دايو أنت ما أركتي هو المهذا كتب عليسن لو يعني لو ما رواي الله سبحانوني الله سبحانوني الله سبحانوني كل جنب إله وحنا كبرينا إنه نود هنوني طاعة سين نقول تاجي دعوة دين إله إله إنه نقول نقاجي دعوة دين إله إنه نقول نقاجي توفيق الله نوافجي دب جنا كي والدين تنا الله داف مراكز تن الله بركي مراكز تن الله بركي مراكز بركي سن ونور الهداية وكفاف إلى مشارق الأرض ومغاربها الله كدوا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أي قبلنا ولا شيء نه حنو سنيسا لو سنو إلهي وحن كبرينا في هذا المجمع المبارك يدك ونكسنا لك الشويم إن إلهي كدر القاضي حنونك إلهي الله كدر القاضي الله كدر القاضي الله عافية إن شاء الله الله عافية أخونا رضوان هو يديشنا الله عافية كل إن ضد بابك الله عافية إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على سيدنا محمد